fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وعنا ورسا صاحب يال ميل وليبا ودعاء وعالم كجوجتان كسر ودا عاويه ورك ugu waaweyn sportiga iyo suuqa isugu ciyaartooga waxaanu soo qaadan doonaa warbixino aad u xiiso badan oo ku jiro tartanka Championship-ka England ama play-off-ka oo maanta la soo gabagabeeyo yaa u soo baxay Premier League ama John Terry mise Frank Lampard arrimihii ugu dambeeyay baanu soo qaadan doonaa iyo wararka kale ugu muhiimsan caawa oo qayb ka yahay Mohamed Salah goolkii bunta ah uu ka dhaliyay Chelsea oo uu abaalmarin ku helay iyo waliba Hazard oo kooxda sanadku laga reebay ayaa loo doortay ninka ugu fiican ee sanadka ee taageerayaasha iyadoo abaalmarintan ku garaacay rag waaweyn oo ku jira Virgil van Dijk iyo Raheem Sterling iyo kuwa kale maxaa ka jira in tababaraha Juventus ka soo tagay Allegri uu tababar u noqon doono kooxda kubadda cagta Barcelona Suarez oo laga raacdeynaya kooxda kubadda cagta Barcelona kadib markii isagoo ciyaari kara final Copa del Rey qalin maray xaaladda Cristiano Ronaldo xilli ciyaareedkiisa ugu horeysay oo ku fashilmay leeyahay waxa uu galay ama uu ku jira xilli ciyaareedkiisa ugu goolasha yara xirfadiisa kubadda cagta iyo qodobo kale waana ku soo qaadan doona caawa ciyaaraha oo ku jirto Juventus oo ka hadashay wararka sheegaya in ay mataqaana Guardiola tababaro ka dhiganaysa iyo maalintii caanka ahayd ee Barcelona taariikhdu lahayd oo soo qaadan doono iyo arrimo kale oo aad u xiiso badan ayaan caawa ku soo qaadan doona oo qayb ka yahay Ramos oo shiinuhu qabanaya iyo qodobo kale bal warkii oo faahfaahsan warka ugu weyn caawa ciyaaraha Mohamed Salah goolkii uu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee bunta ah uu banaan ka toogtay ee uu qatarta badnayd ayaa loo doortay goolka sanadka ee kooxda kubadda cagta Liverpool xilli ciyaareedku koox walba goolka ciyaartooyga ugu goolka fiican bay u doortaan kan yaani xilli ciyaareed walba koox walba waxay sameeyaan ninka ugu goolasha fiican kooxdu bay soo qaataan oo hadda waxay ka dhawaajiyeen xidiga goolka sanadka ugu fiican Liverpool u dhaliyo waxaana noqday Mohamed Salah alaabtii xooga badnayd ama darbadii xooga badnayd uu dawamariyay kooxda kubadda cagta Chelsea marka uu Jorginho iska jeestay lambarka laga qortay goolhayihii Isbaanarkana ee Kebal loogu shubay marka Salah goolka sanadka waa loo doortay goolkii Chelsea waa kay dabaaldeg bay sameynayaan kooxda kubadda cagta ee Aston Villa oo caawa u soo baxday tartanka Premier League wallahi ciyaar baa meeshan u dhex martay intaan idin la hadlayo way socotay gabagabadii way mareysay dabaaldeg way bay ku sameynayaan gagada kooxda kubadda cagta Villa Aston Villa waa soo gudubtay caawa Premier League bay u soo baxeen oo ciyaarta Bray waa ka Grealish ninkan uu nin qatar badan weeyaan kabtanku kooxda Aston Villa waa nin ay raadinayaan Tottenham iyo kooxo badan laakiin wuxuu kabtan u yahay Aston Villa sii joogaya caawa Aston Villa habeen bay u tahay oo uu Chantiri caawiye ka yahay Frank Lampard iyo kooxdiis derbi caawa la garaacay laba gool iyo gool ayaa lagu garaacay ciyaartooygu derbi waa ooyaan laba inta looga hormarayo waliba qaybta labaad goolka inta gool laga dhali laba gool looga hormaray Aston Villa ayuu ku hormartay oo markaa bay derbi gool keensadeen gool bay raadiyeen laakiin way waayeen inay keensadaan oo labaad ciyaartu waana hadda sida ku soo gabagaboodayo Aston Villa ayaa sanad dambe ka ciyaari doonto Premier League waa kan Al-Muhammadi wariyaa ninka kan waa ninkii hore ka ciyaari jiray Premier League waa kay dabaaldegayaan halkan waxa xitaa jooga wiilkii kooxda kubadda cagta Chelsea Toby Abraham baa joogo waa kaye Al-Ghazi ayaa intuu gool bilaabayba McCain uu goolka labaad dhaliyay qaybta labaad ciyaarta waxay gool kaysadeen 8 daqiiqo kuwa kan Frank Lampard uu wato ee derbi caawa laga badiyay Aston Villa baana sanadka dambe ka ciyaari doonto Premier League Master John Terry waa kaye saaxiibkii Lampard garaacay marka Frank Lampard iyo derbi waa ay sii joogi doonaan oo Championship-ka waxa soo gudbay oo heerka kuwaad ka ciyaari doonto xagga dambe kooxda Aston Villa caawa laba gool iyo gool ku adkaatay oo dabaaldeg weyn baan halka ka soconaya dhan kalena kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa maanta u dabaaldegaysa maalintii taariikhiga ahayd ay ku guuleysteen koobka dhagaweynaha ee Champions League 10 sano ka hor bay ahayd maanta 2009kii markii Barcelona ay kaga adkaadeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United laba gool ay dhaliyeen Samuel Eto'o iyo Messi waliba nin Messi oo nin gaaban ah oo Messi geed ma kor kala dhigi jiray Messi waa gaaban tahay la dhigi jiray Messi gaawa intuu ka dulduulay Frank ninka ahaa Ferdinand oo gool madax ka dhaliyay ninka kan ee goosha ku jiray Van der Sar maalinka Messi iyo Barcelona ku guuleystay Champions League labada gool ibarkay kaga adkaadeen 10 sano ka hor maanta oo kale Barcelona waxay Champions League ka qaadeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo bariga Messi garab ciyaarey ma taqaana madax u dognay ma ahan barigaan ciyaaryahanno galab ka garab ciyaarsiinaysan bariga waxa garab ciyaarayay Onreba ka garab ciyaarayay ee Tobal la joogay asagoo Messi jooga rag weeraro khatar badan oo shidan baa jooga haddana soo gool ku kala dhalay markaas maanta waxaad ka garab ciyaarsiinaysan Usman Dembele iyo Malcon iyo Suarez oo caylan oo calukoobay iyo waxyaabo Boyten baad ka garab ciyaarsiinaysan wallahi intuu kuwaas ka garab ciyaareen Champions League baqaadi karin maalintii qaaskayd ee Barcelona 10 sano ka hor maanta oo kale Barcelona ku guuleystay ciyaaraha Champions League Manchester United ka qaaday waliba Barcelona
waxay u dabaaldegaysaa 10 sano guuradii ka soo wareegatay markii ay ku guuleysteen saddexdii koob ee caan ka ahayd sanadka wixii Barca ku guuleysatay 2009kii Champions League wala horyaalka wala koob darbe ku guuleysteen waxaanay noqdeen kooxdii shanaad ee taariikhda ku wada guuleysta saddexda koob ee caan ka ah ee Champions League horyaalka iyo koob kale wadanka laga ciyaaro waxaanay noqdeen kuwii ugu horeeyay ee Spain ah ee saddexda koob leeyda caan ka ah ku wada guuleysta walow marka ay qaadeen 2005 marka maalinkii Barcelona waa taayeen ay u dabaaldegayaan warar kale ugu muhiimsan caawa ciyaaraha waxa kamid ah Edin Dzeko ayaa Roma ka tagayo oo kooxda uu ku biiraya Dzeko bariyaha waxa la islaha Inter uu ku biiraya laakiin wararka ugu dambeeyay caawa soo baxayo waxay sheegayaan Edin Dzeko inuu duuli doono dalka Turkiga waxaanu tijaabo caafimaad u mari doona kooxda kubadda cagta Fenerbahce Roma ayaa ku guuldareystay sanadkan inuu soo baxdo ciyaaraha Champions League waxaana ay wargeysada ka soo baxay Turkiga ay cadeynayaan Dzeko inuu duulayo Spain waan raahday Istanbul habeenka kan ee Isniinta ah waxaana uu wareegaya kuwa kaawashis uu la gaarayo marka ninkan Turkiga buu qabanaya Edin Dzeko alla muxuu weeriyahan ninka kanu yahay wallahi kooxaha qaar ee Premier League jooga waa anfacaya ninkan hore Man City weeyano Dzeko xilli ciyaareedka 20 gool waa ku dhalinaya dadka qaar ee weeriyahanada raadinaya waa kay Dzeko ba ka dhacay Turkigu war ma shaqaystayaal baatiin ma Dzeko idin ka fakaraya marka Dzeko waa kaaye dhanka ay Turkiga qabanayaba waxa kale ugu miisan caawa ciyaaraha Chelsea warkeeda waa cad yahay tababareeda yani Juventus waan raahday Juventus warkeedu waa cad yahay tababareeda xiga waxay ka dhiganayaan leeyahay ninka la yiraahdo Mauricio Sarri way iska caddaha leeyahay Sarri waa number 1 tababaraha bedel ku noqon doona Allegri waxaana booska ninkan uu ka baxay Chelsea qaban doona ninka caawa laga badiyay Frank Lampard ee ku guuldareystay derbi inuu soo keeno dhanka ay Premier League maadaama derbi caawa inuu soo bixin Championship yani uu soo bixin Premier League Frank Lampard waxa laga yaabaa inuu Chelsea tababar u noqdo Zarina waxa uu qabanayaa bal kooxda Juventus marka kalsooni ku qabaan in Zari ay ka dhiganayaan tababarahooda dhan kalena Luis Suarez waa laga racdeynayaa bal kooxda Barcelona shaki weyn baa la galay mustaqbalkiisa ninkan oo 32 jira isagoo hadda goolintiina laga waayay oo haddana caluukanimo ku darsaday ayaa haddana taageerayaasha Barca isku sii diray taageerayaasha Barca waxay aaminsan yihiin ninkan inuu yahay qiyaanoole maxaa yeelay isagoo ciyaari kara final Copa del Rey ayuu qalin isku sameeyay waxay leeyihiin taageerayaasha Barcelona wadankaaga waad naga jeceshahay annagoo kooxdiina ma jecelid bay leeyihiin yacni taageerayaasha Barca waxay ninkan ku haystaan yacni markii Champions League uu laga soo haray ninkan uu qalin buu maray oo hatta darreey muhiim kama soo qaadan oo qalin buu iska maray qalinkaasna ugu dadaalayo sidii uu ciyaari lahaa ciyaaraha Copa America ee wadankiisa ciyaarayo taageerayaasha Barca waxay leeyihiin wariyaha qalinkaaga dib u dhigan kartay laakiin Copa del Rey inaad noo ciyaarto baad ka doorbiday inaad hadda isqasho wadankaasi aad ugu ciyaarto taas marka waxay keentay taageerayaasha Barca in dhibaato ninkan uu kala kulmo taageero inuu kala kulmo cabasho weyn uu kala kulmo waxay leeyihiin Suarez waa qiyaanoole nanama sii joogaya kooxdu wargeysada ugu weyn ee Spain ka soo baxaya gaar ahaan kuwa Catalonia Sport ku jirto waxay leeyihiin Suarez mustaqbalkiisa shaki baa ku jira walow Suarez uu garab weyn ka haysto Messi oo Messi saaxiib la yahay haddana laga ma yeelay baa leeyahay Suarez waa lagu dhagan yahay waxa leeyahay yani ninka kan waxa lagu haystaa markii Champions League laga soo reebay qalin buu maray qalinkaas hadduu dib u dhigi lahaa dalreeb uu ciyaari lahaa kadib uu qalin ku mari lahaa asagu waxa lagu haystaa war qalinka intaadan galin يعني داوين بتغادر كرتي مركز كوبادريغو فينالكيسا نوع ciyaartana kadib khaliinkaaga mar laakiin asagu waxa leeyahay khaliinka wuxuu u maray si uu hadda u soo bogsado wadankiisa inuu kaga qayb galo Copa America marka waxay leeyeen waad naqayaantay Copa del Rey in laga qaado adiga noo keenayo xilli aan qalin la galin baad qalin gashay qalin la'aan baad noo ciyaari kartay bay leeyeen markaad anagu noo ciyaarto bal maxaad qalinka u mari weysay leeyeen shaki baa la gelinaya mustaqbalka Luis Suarez arimaha kale ugu miisan caawa ciyaaraha waxa kamid ah wararka soo baxay Spain waxay sheegayaan Ramos inuu ka codsaday Madrid in la fasaxo waxaana Ramos la sheegay inuu doonayo inuu aado horyaalka Shiine Super League oo wararka ugu dambeeyay waa sida ay leeyihiin kabtanka 36 jirka ayaa ka tagi doona kooxda Real Madrid xilli ciyaareedkan kadib isku dhac weyn oo Madrid ka dhexdhacay isaga iyo maamulka kooxda Ramos ayaana ka codsaday baa la yiri kooxda u fasaxaan waxaana uu aadayaa baa la yiri koox aan la magacaabin oo Chinese ah marka ninkan uu Chinese baa bariyan lacag lagu tilmaamayo mees lacag baa taatala bariyaha kan marka ninka la yiraahdo Ramos wuxuu codsaday baa in la fasaxo waxaan wararku sheegayaan in uu Ramos doonayo inuu ku biro horyaalka Shiinaha dhan kalena Hazard oo aan lagu darin kooxda sanadka Premier League ugu fiican ayaa loo doortay xidiga ugu fiican Premier League sanadka waana abaalmarinta taageerayaasha codeeyaan abaalmarintu taageerayaasha Premier League xidiga sanadka ugu fiican waxa loo doortay Hazard wuxuu abaalmarinta ku garaacay Mane Van Dijk Sterling Aguero iyo Bernardo ninkan 37 jirka ayaa xilli ciyaareedkan wacdaro weyn dhigay saasoo ay tahay lagu madanin kooxda sanadka haddana waa ninka sameeyay 15 caawin iyo 16 gool oo Premier League ka dhaliyay waxaanay taageerayaasha Premier League u doorteen xidiga sanadka ugu fiican England ninkan yiraahdo Hazard
dhan kalena Harry Kane ayaa taageerayaasha Tottenham ka farxiyay wuxuuna cadeeyay inuu diyaar u yahay finalka Champions League asagoo maanta hadlay wuxuu yiri hadii maanta la ciyaari lahaa Champions League finalka Champions League haduu maanta aan la xitaa diyaar baan lahaan lahayn ciyaaro iska dhaaf maalin kale marka fit buu yahay Harry Kane waa reer Liverpool shubku tashta buluketian waxay ka tarayne ha isku dhina Kane waa maqan yahay isku dhina Kane diyaar weeyaan Kane diyaar baan hay u leeyahay hadii laga dhigay Champions League finalkiisu le iska dhaaf sabtide diyaar baan waan ciyaaraya markiin uu cadeeyay inuu fit u yahay Champions League ebela nimankan wax maaro loogu waayay Mauro iyo maxaa la dhahaa nimanka Lucas Mauro iyo ninka la yiraahdo Ronaldo iyo ninka kale ee Dali Aliya iyo Llorente hadoo kiin ku soo darsoomay kuwan wax kale wala weyn uu cadayn final kuwa kan hadana bariyahan Bononiga waa halaabay mucjiso iska dhici kartaa laakiin Liverpool shi xoog badnaydna meesh waa joogtaayo lama yasi karin kaayo anu waxaan isleeyahay kuwaas Liverpool niman abkay Barcelona dilow ma u daaha Tottenham baan isleeyahay laakiin inuu Bononiga calaw yahayna waan ogahay oo macquul ay tahay laga hoos bixiyo hoos bixis maqli kara Liverpool kan waan rabnay leeyiga dhaafaya qay wareer Liverpool kooxda kubadda cagta Chelsea baa inuu maanta u safartay Baku halka lagu ciyaarayo finalka koobka kan ee Europe League Marussia Sarri wiilashiisu waa ka baxay maanta kadib markay tababarkii ugu dambeeyay ku qaateen koobhan Arsenal sabtidii bay baxeen halka bay tababar ku sameeyaan hadaba ciyaartooyga Chelsea maanta way safreen waxaanay finalka Europe League la ciyaarayaan arbacada kooxda Arsenal koobka khamiisleydu arbaca la soo gabagabeynaya Valencia maanta dabaaldegii baabuurta ay ku sameeyaan magaaladooda waxaana la isugu soo baxay dad aad u badan oo waxay ku dhex wareejinayeen magaalada koobkii ay ka qaadeen kooxda kubadda cagta Barcelona waliba tababaraha kooxdaasu Marcelino Garcia ayaa ooyin la dhacay maxaa yeelay koob ayuu qaaday oo weyn oo aan waliga ku guuleysan dalreegu waxay Barcelona 4 sano soo qaaday sanadkan waa laga qaadayo waa kay 4 saac kadib markii ay Valencia Barcelona dhagaha ku dhufatayna waa kay u dabaaldegayaan maanta baawur ku dhex maraya magaaladii waa kay derby koob waan raahday Aston Villa koobkii waa lagu wareejinayaa Aston Villa haween bay u tahayo alla Villa halla Grealish Aston Villa dib bay ugu soo noqdeen ciyaaraha horyaalka Premier League waan arki doonaa wiilasha cusub ee Premier League iman doona waa kayo derby bay ka taaluseen ay ka badiyeen 2 gool iyo gool kooxdan way u qalantay caawinay soo baxaan Aston Villa waa kayo koobkii la gudoonsiiyay John Terry baan halkan caawiye ka oo Frank Lampard waa laga badiyay kooxdiisu derby oo tababaraan baa markii ruuxaya waa wada ruuxayaan Aston Villa habeen qaas bay u tahayo ciyaartii playoff-ka ku adkaadeen caawa Villa ku soo dhawaada Premier League bariyahan ba wax ma dhicin koox qaybta kuwaad gool lagu bilaabay playoff-ka inay u soo baxdaan u dhicin kooxdii ugu dambeysay ee playoff-ka finalkiisa inta gool laga hormaray qaybta koowaad ee soo celisay ciyaartoo badisa waxay ahayd kooxda kubadda cagta La City 1996 marka qaybta koowaad Crystal Palace ee gool kaga hogaamisay laakiin mar dambe ay ku adkaadeen Leicester 2 gool iyo gool marka kooxda qaybta koowaad gool dhalisa ayaa bariyaha caanka soo bixi jirtay marka ma dhicin koox qaybta koowaad gool dhalisay all right mudooyinka ma dhicino caawa derby waa laga badiyay Juventus waxay cadeysay Dybala inuu yahay ciyaaryahan muhiim ah oo aanu kooxda ka tageen waxaana meesha ka baxay wararka sheegay inuu Madrid Manchester United iyo Man City ku biiri doono Dybala wuxuu cadeeyay inuu joogayo daarada kooxda Juventus wuxuu maanta cadeeyay Dybala inuu kooxda muhiim u yahay una sii joogi doono dhan kalena Crudi Ranieri oo Roma kulankii ugu dambeeyay shalay macsalaamay ayaa la arkay isagoo ooyin la dhacaya maxaa yeelay kooxdan ayuu si ku meel gaar u maamulayay kulankii ugu dambeeyay buuna shalay u ahaa waxa la arkay isagoo ilmeynaya kooxdan hadda tababaraha ku meel gaar ku ahaa haddana isagoo uu hore ugu soo ciyaaray waxa kale oo jirta oo caawa ciyaaraha ugu weyn Juventus xitaa waxay beenisay wararka sheegaya in tababar ay ka dhiganayaan Pep Guardiola bariyaan waxa la isla dhexmaray Juventus ay tababar u noqonayo Guardiola oo 4 sano la gaaray laakiin director kooxda Juventus ayaa warkaas beeniyay waxaana uu cadeeyay inuu been yahay oo aynu Guardiola la xiriirin dhan kalena Cristiano Ronaldo waa xilli ciyaareedkiisa ugu xumaa xirfadiisa leeyahay xilli ciyaareedkan 43 kulan uu ciyaaray tartamadoo dhan wuxuu dhalay 28 gool oo 21 kamid uu Serie A ka dhalay Ronaldo xilli ciyaareedkan waa xilli ciyaareedkiisa ugu gool sharaaba leeyahay 9 sano uu Madrid joogay wax ka yar 3 gool ma dhalin jirin tartamadoo dhan tusaale ahaan 2093 buu dhaliyay 2023 buu dhaliyay 2022 gool buu dhaliyay 2022 gool buu dhaliyay 2023 gool buu dhaliyay 2024 kale 42 buu dhaliyay 2006 haddana 44 wuxuu dhaliyay 2017 laakiin xilliyeedkiisa ugu horeeyay Juventus 28 gool buu dhaliyay ka war 43 ciyaar uu ciyaaray marka waa fashiliya baa leeyahay xilli ciyaareedkiisa ugu xumaa weeyaan 9 sano ee Madrid uu joogay wax ka yar 33 gool ma dhalin jirin haddana waa ka 30 gool xataa ma gaarin xilli ciyaareedkan tartamadoo dhan waliba dhanka Serie A oday 36 jir ah ayaa ka qaaday goolinta Serie A dadka Ronaldo maxay lahayn Ronaldo qaaday goolinta waa iska caday Ronaldo qaaday gool Serie A markuu 100 milyan ugu wareegay Juventus waxay lahayn dadka Ronaldo warba ka tagayo Ronaldo asaga la qaaday goolinta bay yiraahdeen warni asaga ka sii daaweyna goolinta ka qaaday ninka 100 milyan laga bixiyay 36 jir baa goolinta ka qaaday oo 36 gool ugu qaaday aan raadi 26 gool ugu qaaday asaga 20 gool buu dhalay hatta Ronaldo
wuxuu noqday ninka afraad ugu goolasha badan Serie A buu noqday lambar 1 baa laga xoogay lambar 2 baa laga xoogay lambar 3 baa laga xoogay xitaa goolinta Yurub oo dhan yacni horyaalada Yurub oo dhan tobanka sare xataa kuma jiro rag ugu goolasha badan horyaalada Yurub oo dhan tobanka kore xataa kuma jiro kaalmaha 13 14 baa laga raadinaya odagu xilli ciyaareedka waa ciibay sagaalkii sano ee Madrid gool badan buu dhali jiray baa leeyahay xilli ciyaareedkana tartamada oo dhan 28 gool buu dhalay marada ka dhacday dhan kalena Afrika ciyaartooyga lagu magacaabo ninka la yiraahdo Ziyech iyo ciyaartooyga kale ee la yiraahdo Masrawi ayaa lagu daray kooxda kubadda cagta ee wadankoodu Morocco ee ka qayb galaya ciyaaraha koobka Africa Cup of Nations dhan kalena tababare Allegri baa laga yaabaa inuu tababar u noqdo kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo laga yaabo in iska ciyaariyaan masninka la yiraahdo Ernesto Valverde Allegri wuxuu ku soo guuldareystay waqtigiisa Juventus inuu Champions League u qaado laakiin shantii sano uu la joogay Serie A badan buu ku guuleystay oo dhammaan wada qaaday waqtigiisa hadda waxay wararku sheegayaan Allegri wuxuu sugayaa telefoon ugu yimaado kooxda Barcelona yiraahdo wari Allegri warkaaliniyo nin sandheerana dhabay adba xataa sanka waad ka dheertahay kolba sandheerba la tiine kolba waad ka runtaan maleynaya halkan tababar waad ka noqonaysaa ibow Allegri wuxuu sugayaa leeyahay telefoon kaga yimaado Barcelona oo ku yiraahdaan wariya tababareer baad noqonaysaa marka Barshi ayuu sugayaa leeyahay dalab ugu yimaado Massimiliano Allegri ee ninka Valverde la yiraahdo waa la cirinaya sandheer Valverde ko kala sandheer baad wacanaysaan caawayo wararkii ugu waaweynaa ciyaaruhu waa naga intaa